lixda gobol ee hadda jira waxa soo todobaysaa oo degmo ee balaas ah waa degmada Gabiley ma lagu tixgelin doonaa inay tahay degmada Gabiley degmo ee balaasa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro markii uu yimid gobolka Gabiley waxa uu amar ku bixiyay in isbaaro kasta oo hortaala gobolnimada Gabiley laga hor qaado halkaas oo ku sugnaa wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Cabdalla Sandheere ayaa sidoo kale waxa uu amar ku siiyay inuu sugo xuduudda gobolnimada Gabiley arinta gobolka Gabiley waanu ka shaqaynaynaa waxaanu ka hor qaadaynaa dhammaan isbaarooyinka ka horeeya gobolnimada oo ay ugu horeyso sida sharcigu qorayo kala xadeynta gobolada marka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha insha Allah waxaanu amri doonaa in la bilaabo boroseeskii kala xadeynta gobolada iyo dhamaystirka gobolnimada Gabiley haddii la yiraahdo haddaba xuduudda gobolnimada Gabiley waa halkii 1960kii degmada Gabiley waxay xukumaysay Lughaya iyo Cali Xaydh waa xuduuddii 1960kii degmada Gabiley ay wada lahaayeen iyo degmadaasi Boorama sidoo kale xuduuddoodu waxay ahayd Hargeysa Caabudla Agab iyo degmada Agabar iyo xuduuddii 60kii ay la lahayd dhanka Hargeysa iyo gobolka Awdal ama degmadaasi Boorama dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ku qoran in xuduudda degmooyinka iyo goboladu ay yihiin xuduuddii 60kii haddaba ma waxay noqon doontaa xuduuddii 60kii mise xuduud cusub ayaa loo samayn doonaa gobolnimada Gabiley sidoo kale waxa xusid mudan inay degmada Gabiley ay tahay degmada kalaate ee balaas ah ee degmooyinka Soomaaliland ee haysan gobolnimo lixda gobol ee hadda jira waxa soo todobaysaa oo degmo ee balaas ah waa degmada Gabiley ma lagu tixgelin doonaa inay tahay degmada Gabiley degmo ee balaasa haddaba su'aashu waa xuduudda gobolka Gabiley ee 1960kii ma la mari doonaa mise wax taasi ka duwan ama xuduud kale ayay Gabiley yeelan doontaa haddaba warbixin la mid ah inta aynu ku kulmi doono waa anigoo Cabdisalaam Maxamed Badaa oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo